isbeddelka Somaliland waxa weeye inaynu shacbigeena midayno siyaasadda xukuumadda kulmiyana waa inay shacbiga qaybiso oo ay magacyo u kala bixiso aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shacbiga caasimadda ganacsiga Somaliland ee Wajaale Wajaale isu soo baxan ama soo dhaweyntan waa fariin cad soo saas maaha in kulmiye la bedelo saw maaha magaalada Wajaale waa caasimadda ganacsiga maanta ganacsigeenu uu dhintay sakaraad ku dhow yahay insha Allah ganacsiga Somaliland iyo caasimadda ganacsiga sida yahay iyo si ka wanaagsan baa qorshe u hayaa ku soo celiyo xisbiga ganacsiga waanu daryeelaynaa ganacsiga waa tasiilaad badan baa loo samayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo magaaladani waa magaalo caasimad ganacsi oo Somaliland iyo geeska Afrikaba insha Allah kaalinteedii baynu ku soo celin doonaa isbeddelka Somaliland waxa weeye inaynu shacbigeena midayno siyaasadda xukuumadda kulmiyana waa inay shacbiga qaybiso oo ay magacyo u kala bixiso waxaynu doonaynaa inaynu ganacsigeennii dib u noolayno waxaynu doonaynaa xiriirkeennii beesha caalamka inaynu dib u noolayno waxaynu doonaynaa siyaasaddeena arrimaha gudaha inaynu wax badan ka beddelno waxaynu soo dhawaynaynaa dhammaan xildhibaanada golaha wakiilada oo ay ka mid yihiin Arsaala iyo dhammaan xildhibaanada xildhibaanka shacbiga waa soo dhawaynaya xildhibaanka shacbiga Somaliland Maxamed Habiibna waa soo dhawaynaya walaalayaal maanta waxaynu haysanaa fursad qaali ah waxaa laga yaabaa 13 November kadib beddelka fursaddaasi waxa weeye in codkaagu aad wax ku beddesho codkaagaa maanta wax beddeli kara isbeddelka la sheegaya waa muwaadinka oo codkiisa uga codeeya isbeddelka adigu waxaan musharax madaxweyne oo Somaliland u sharaxan waxaan u sharaxanahay xisbiga wadani waxaan u sharaxanahay urur siyaasadeedka ka waxaan u sharaxanahay dhammaan cid kasta oo isbeddel doonaysa Somaliland boqolkiiba 95 waa soo baxay boqolkiiba 95 kaasi iskuma khilaafsanaa in Somaliland ay khatar geliso kulmiye ku soo noqdo Somaliland waxay ku raacsan tahay isbeddel Somaliland law yacdo ilaa Carigaabo waa soo maray nin baa laga sheegay cadana tagayo wallahu akbar lagu kala bayni waa Somaliland isbeddel umay kala bayni isbeddelkuna inagu xidhan yahay muwaadiniintu ku xidhan yahay codkaagay ku xidhan tahay codkaaga diyaar ma u tahay isbeddel dawladdiin si cabashooyinka uga baxdaan isbeddelka u codeeya